Sheekada 22aad Dhalashadii Yooxana. Waqtiyadii hore, Ilaahay wuxuu la hadli jiray nebiyadiisa si ay ula hadlaan dadka, laakiin in ka badan 400 oo sano markii uusan la hadlin ayaa Ilaah wuxuu nin wadaad ahaa oo la dhihi jiray Sakariyas u soo diray malag. Xaaskiisa Elisabet iyo isaguba waxay ahaayeen dad waayeello ah oo Ilaahay rumaysan, wax ciyaal ahna ma aysan haysanin iyaga. Malagii ayaa Sakariyas ku yidhi, xaaskaaga waxay dhali doontaa wiil, waxaadna u bixisaa Yooxana, wuxuuna noqon doonaa nebi aad u sarreeya, waxaana ka buuxsami doona ruuxda Ilaahay, wuxuuna dadka u sii diyaarin doonaa Masiixa. Sakariyas ayaa u jawaabay oo ku yidhi, aniga iyo xaaskayguba waxaan nahay dad aad u da'weyn, sidee ayaan ku ogaan karnaa inay tani dhacayso? Malagii ayaa u jawaabay oo ku yidhi, waxaa la ii soo diray inaan kula hadlo oo aan warkan wanaagsan kuu keeno. Maadaama aad i aamini weysay, waad aamusnaan doontaa mana hadli doontid ilaa maalinta ay waxyaalahan dhacaan. Isla markiiba Sakariyas hadalka ayaa ku dhegay, kadibna wuxuu tegay gurigiisii, xaaskiisana uur ayay qaaday. Markii Elisabet ay 6 bilood oo uur ah ay leedahay, ayaa Ilaah isla malagii u soo diray gabar bikra ahayd oo la dhihi jiray Maryan. Maryan waxay u doonanayd nin la dhihi jiray Yuusuf oo farcankii Daa'uud ahaa. Malagii baa u soo galay Maryan oo ku yidhi, waad uuraysan doontaa oo wiil baad dhali doontaa, magaciisana waxaad u bixi doontaa Ciise. Markaasaa Maryan waxay malagii ku tiri, sidee ayay ku dhacaysaa anigoo ah gabar bikra ah? Malagii ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Ruuxa Quduuska ayaa kugu soo degi doona, awoodda Ilaahna way kuu imaan doontaa. Kan quduuska ah oo kaa dhalan doonana waxaa loogu yeeri doonaa Wiilka Ilaah. Maryan way rumaysatay malagga hadalladiisii. Maalmahaas kadib, Maryan waxay booqatay Elisabet. Maryan markii ay salaantay Elisabet, isla markiiba cunugii ku jiray caloosha Elisabet ayaa ku dhex boodbooday caloosha Elisabet. Maryan iyo Elisabetna way ku wada farxeen waxa uu Ilaah u sameeyey iyaga. Maryanna markii ay Elisabet la joogtay muddo 3 bilood ah, ayay gurigeedii ku soo noqotay. Intaas kadib, Elisabet waxay dhashay wiil, waxayna u bixiyeen Yooxana, siduu malagga ugu amray. Kadib Ilaahay wuxuu hadalkii u soo celiyey Sakariyas. Markaasuu hadlay oo yidhi, Ilaah ayaa mahad iska leh, waayo mar kale ayuu dadkiisii caawiyey. Adiga wiilkaygiiow, waxaad noqon doontaa nebiga ugu sarreeya Ilaah agtiisa, waxaadna jidka u sii diyaarin doontaa Masiixa.